ayaa noo dhagax dhigay qol ay ugu kordhinayaan iyo geed wada socda oo lagu maxaan ku raadey ballaarinayo health post degmada Waraaqay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa deeqda ay noo keeneen ay soo gaarsiiyeen gudoominay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan u leenahay waa ku mahadsantiin degmadiini aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maxaan ku raadey oo kale ee u dhashay degmadana inay saas si leeg ay uga soo qayb galaan degmada wax qabadkeeda iyo taageeradeeda saas baanu maxaan ku raadey ugu baaqaynaa jahliyadaha kale dibadaha sirrada maxaan ku raadey xilbaanada u dhashay degmada qoladanna waxaan u leenahay degmadiini baa wax gashateen tantiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa hawsha la soo abaabay sida wacan looga soo shaqeeyay ay bixiyeen gaashaan buurta aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sida cabdi sheegay waxyaabo badan oo magaalada u baahan tahay jira degmadii baan dhamaystirnayn xataalan waa la magacaabay haddana xataalan waxyaabo badan oo ka dhiman baa jira oo ay u baahan tahay kulli baahina lama soo koobo waxaan leenahay insha Allah dadka maqanay u dhashay degmada iyo jaaliyada dibadda wixii karaankooda ay qof uu kari karayo ku caawinayo degmada inay soo bixiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. deeqda la idin sheegay ay soo gudbiyeen gaashaan buurta waan ugu mahadcelinaynaa ilaahay hagtiisa mariyo waxaan tahay raaca magaalada Deeway dadkoodii iyo wax soo taray iyo caruurtoodii markay ku fool qaado gabadhu waxa loola carray burco ama duruqsi ayaa noogu dhaweyd meel laga muliyo waxaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay mahadii amsi ajiro lama qasanayo meesha looga dhisnaa markaas cidda u dhalatay iyo ama dibadda joogta ama gudaha joogaan bay waynay hoos eegaan dadkooda ku nool yahay ama halkay ka soo jeedaan dhalashadoodu sidaas ayaan halkan uga gudbinaynaa dawladda hadday tahay gudoomiyaha burco hadday tahay xildhibaanada waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh horta marka waxaan u mahadnaqaynaa inamadan iyo hablahan gaashaan buureed ee xanaanadan noo soo qalqaaliyay marka labaad anagu waxaanu nahay degmo aad iyo aad waxaan uga liidanaa goob caafimaad malihin shaqaale jajaban oo goob caafimaad nooga shaqeeya malihin dawo ilmaha duu xanuunsado aanu ka helo waxaanu gaadhi u shidaalsanaa duruqsi meel ka sokaysa kama helo dawo iyo wax dayactiratoon dawladda iyo xildhibaanada ay ku codsanaynaa inay noo dhamaystiraan xanaanada ay noo soo fuliyeen inamada shaqaystay ee gaashaan buureed
hablaha inoo xil saareen iyo inamada inoo xil saareenna aad iyo aad baan ugu qanacsannahay waxaanaanu idin leenahay xanaanadaas oo dhammaystiran oo halkaa aanu kaga soo gurguurano ayuun baanu idinka rajaynaynaa ilaahay baa mahadle السلام عليكم علي يوسف محمد ما شاء الله تبارك halka waxaan ka salaamayaa inamada noo qalqaaliyay xanaanadan xooggoodii wixii ay ka tarasay ka shaqaysteen noo qalqaaliyay waxaan leeyahay ilaahay halka ka soo saarteen wax baraka leh idin gal dawladda waxaan leeyahay waxaan doonayaa inay noo dhamaystiraan halka aan nolol raadka ay noo raacaan iyaguna intii naga qabiyaan noo dhamaystiraan ilmaha yaga caruurta waxa la geynayay duruqsi gabadha foolata waxa la geynayay burco خليتي بحتي دمتنا ودمنتي تي كلنا ديق بحيسينا دي محابة برعية درقسي كقاري marka waxaan leenahay walaalayaal hawsha aasoo inamada noo soo qalqaaliyeen ina idinkuna dawladdu dhamaanba ka codsayna inay wixii naga dhiman noo dhamaystirto sidaas aan ilaahay ka rajaynayna idinkana khayr iyo baraka idinku soo diray hablaha iyaga gaashaanbuurteena loo soo xil saaray noo yimi dhamaanba iyagana hambaliyo iyo nimco iyo khayr baan noo haynaa ilaahay mahadle marlabaad waxaan mahadnaqayaa hablaha isoo abaabulay maanta ka soo qayb galay xanaanada la dhisayo waqtigoodii iyo tabartoodii iyo ragnimadoodii soo siiyey inay meesha iyagu tagaan soo dhigaan dhagax dhigaan soo habeeyaan yimi ayaan horta mahadnaqaya waxa ugu weyn in haystay waxay xanaanada inaad xanuunsataa uur kale ilma caruurta qof kasta waxaan dhibaato mushkilad u haysto in marka la dhiso oo imarka qofka la dhiso la keeno dad firfircoon oo dhalinyaro ah alxamdulilah rabbil caalamiin haddii imarka ay habluhu noo keeneen la soo gaareen wixii dambe inay daba qabateen alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ku labaynayaa goobtan dhex taagan waa saldhig siduu yahay beelahdiisa baytilmaalkiisa walxamadiisa waa la arkaa waxaan leeyahay cid kasta oo dheer iyo cid dhowba oo danaynaysa waraabeeye inaad tan la uga qayb qaataan waayo cidda qura ee marka hay'ad ee madda ka shaqaysa waa saldhigayga u joogta maamuli marka madax ku xidhan weyno gaadh weyno gacan siin kala weyno way dhibaatan ugu leedahay bulshada sida wanaagsan u soo dadaasheen xanaanadii hooyooyinkii iyo carruurtii loola soo gaaray gurmadka degdega halkanna waa lafdhabartii labaad ee nabadgelyada in la soo gaaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شامبور رج يا بابا وأنا محتسيهن أنا وما حد بغينا وحيابا بدنا نروح بحرين دقنا نروح بحرين وبدك يا مولسوين يا تبعت أمور عيا أيضا بدنا نروح بحرين ما تروح أشياء ده الله يسوم بيشي وحنا قراءة لوجو شغينا دبعتوا يمدن أيا نجح يستي أمورين كتاي ده عروس تتاي حنانوين كلا أيا لقبتي يا مركز قفك أما مش حماته بسم الله الرحمن الرحيم halka kan waa magaalada Waraabeeye anigu waxaan ahay daryeelaha caafimaadka ee halka kan u jooga magaalada Waraabeeye tan ugu liidatay waxay qalabkiina waa naga dhiman yahay aqalkii la dhigayana waa laga dhiman yahay materialka kale ee alaabta kale ay qaadayaan wax yar yar oo kooban waxaan xaqiiqadii u baahnayn inkastoo maanta aan asaarteeda aragno in loo kordhiyo dhiska oo loo sameeyo geed الله وبركاته حبله حوشه ودي كسجا جاله يفوسية يفرح يكلتون وحن دقمدي ورابعين كسجنا هاي دقمدو عادو ضيعان وقل كل وجد السيهاي تمر كودك بحاية تلكود أيام سعاوية جاشامبور هنا ودي السانين حنانو تقدقه marka waxaan ka codsaynaa dawladana wixii ka dhiman in dadka dumarka baahida badan sheeganaya ee umulisadii aan gaarsiin karin ma tii fool qaado waxa la geeyay duruqsi qaar baa jid ku dhigbaxa qaar baa waxa ku ilmihii ayga ugu dhasha marka dad qofta cabso oo nabarayna waa la dareemi karaa marka dawladda sharafta waxaan ka codsaynaa caawiyaan degmada qurba joogta gaashaanbuur ay ku soo caawisay dumarkooda dhigbaxaya umulisan haysan inay umulisadii iyo caafimaadkii iyo dawooyinkiiba ay ku soo kaalmeeyaan intii hawsha ka qayb gashay iyo intii abaabushay intina waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay maxay haytay u barakeeyo awlaada iyo ducaa haysan ilaahay u xiftiyo dadka soo taabashooday dadkoodii ka arkaya hooyo dhigbaxaysa hooyo waxaan kugu ilmihii ka kala tagaysa intaaba ilaahay maxay haytay ugu hawlgalay in miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiinayna ilaahay qurba joogaan ilaahay xiftiyo ilaaliyo xanuunada jira ilaahay xanuunadana maalmariyo ayaan ilaahay uga baryayna
ehelka kale ee gaashaanbura dalka u dhashayna waxaan leenahay waxqabadka waa aragtaane way idin bahayn tulkiin badka iskeel almada waasac baa la yidhi dee badka hala iskeeno dee degmada yaa u maqan ninkii u maqnaayo dee isu waa darata gaashaanburti kale dhexdaa loo xidhan maatadii la tabaalaysan ee dayacan waxaan uga baxaya ablaha kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hawshu baahidu intana qura maaha waa badan tahay imka anagu maanta waxaanu sidnaa qol iyo bersad iyo geedhkii waxaan jecel lahay dee wixii ka dhinma in loogu soo daro oo dawladdu caawiso dadkii magaaladan u dhashay ay dee yimaadaan oo ay arkaan in horta bal wax la qabanayo wixii la qabto marka wax la taabto wuxuunbaa soo kordha marka waxaan ku rajo weynahay in la soo kordhiyo anagu qol iyo bersad iyo geedh baanu imka sidnaa ha la soo kordhiyo baahidu intaasoo qura maaha baahidu waa badan tahay kaasa kaga baxaya salaam قلت اسمع الجامعة وحنا كسرنا ما تعقب هنبقى كان كاشف سفي عنه ونلوقه بدمي وهذه هذا قربنا باهيدو دي عبشدو دي بينو سو بندين ما هاد عدينينا دمان dadka aan soo booqanay ee soo ugu soo dhaweeyay magaalada anigu ah magaciisa Xuseen Aadan ayaan uga mahad celinaynaa dadka soo dhaweeyay ee magaalada ugu nimay ee gacan qabashada u baahan waxaan leenahay inta ay ka badan ba ilaahay baa laga helaayo waa in ka badan ku soo dartaan السلام عليكم